ورال هذا وحق دعي باور بحسن كنت سمينه وحي با iga kala go'ay iga raal ahaada marka kii hore boostu asagoo dhamaan boostiga asaga taab sababta ciwaankii baana qori karin hadda kuma noqon karo meel aan ballan kula haaban taaganahayo waqtiga cariiri igu ah marka sida aan shacabka Soomaaliyeed waxaan isweydiinaynaa waxay tahay Jawaari Professor Jawaari intaan ku baranay waxaan ka baranay runtii maxay tahay joker weyn inuu yahay dalka waa u soo shaqeeyay hase u soo shaqeeyay kuma aanan baranin wadani dhab ah oo maaragtay Soomaaliya macnaha u huray naftiisa iyo maalkiisa u huray kuma aanan baran waxaan ku baranay runtii nin isdaba maris badan nin maaragtay joker ah nin hadba dabayshu dhinaca u socoto asagoo sidoo maaragtay dhinacu rabo u wadi kara steering kara u qaban kara yaan ku baranay taa macnaheedu waxa weeye waxaan nooga filayd anagu shacab baan nahay dadka indhahan ku haynaa nin kasto ka qayb wuxuu yiri ninkii wax noo qabtay iyo ninkii maarta qaladka noo geysta labadaba indhahan ku haynaa anagu Jawaari mudagu nala soo shaqeeyay khayr Allah siiyo laakiin waxaa jirta wuxuu ku faantamayay anigu maartay intaas dawladood baan la soo shaqeeyo aan soo meel mariyay waxa weeye waxaan u sheegaynaa hadaan nahay shacabka Soomaaliyeed wuxuu soo meel mariyo waxyaabo uu qaldi karin baa jiray sida hadda doorashadii oo kale dhalacad oo halka taalo oo loo wada dhan yahay waxba kama qaldi kartid waxna kama deemarin kartid laakiin waxyaabaha lagu xasiin karo oo lagu ogaan lahaa waxay ahayd oo wax ku garan karnay waxyaabihii ka dhacay markii ra'iisul wasaare maxay tasaacid oo kale iyo maaragtay ninkii la oran jiray Ishaq ra'iisul wasaarihi kale asagana ku xigay maxay tayulka labada ninba markaan fiirino especially Saacid qaasatan Saacid oo ku baryootay war xukuumadeedii waxa ay xaq u leedahay iyo waxa ay qabatay aan soo bandhigo taasi macnaha waxa weeye lama oran karo waxa macnaha marka la leeyahay bal aan soo bandhigo oo qofka shaqadiisa loo diiday inuu soo bandhigo Jawaari mas'uuliyadaas asaga lahaa inuu siiyo fursadaas وحق أولها واجب كان كو أهيد لكن ميسك هوستي سوغلي لو دغايسن ما هي انتو سو بلميي تايا marka maxaa wadani baan ku naqaana ma cadaalad baan ku naqaana ma dhaxdhaxaad baan ku baranay maya kuma na baran dabayshiisu marba dhinacay rabto ayuu asagu la socdo horta u wada waxaana kala sheegaynaa ra'iisul aan ku baranay gudoomiyaha baarlamaanka daanahay shacabka Soomaaliyeed inuu maaragtay steerinka uu sidoo doon u wada yaqaano musuqmaasuqna runtii aan ku baranay kuma aanan baran nin maalka iyo naftiisa iyo waqtigiisa u hura qarannimada Soomaaliyeed iyo sida mid u ahaan lahayd oo aan cad u soo dhixgali lahayn kuma aanan baran runta markaan ka hadalno kuma aanan baran sida daraadeed waxaan maaragtay ka codsay maxay tahay anagu aan leenahay shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay waxaan garab taaganahay dawladda nabad iyo nolol oo ra'iisul wasaare madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayr hogaaminayaan waa mideeye iyo madaale bini'aadanku ishu waxay aragto ayaa bini'aadanka anaga caloolahooda kuma jirno bini'aadanka laakiin waxyaabaha aan ka dheehan karno oo macnaha aan korkooda ay ficilkooda aan ka aragnay waan ku raacsanahay oo aan ku aaminsanahay maxay Jawaari wuxuu yiri gudoomiye wuxuu yiri maxay hayto arrimo saxiix la yiri baan diiday wuxuu saxiix yiri transparency way dawladdan banaanka soo dhig waxba qarin gudoomiye labadina kii wax qaribaya si aan u ogaano oo anaga hore waaba kuugu naqaanay musuqmaasuq maanta hadii aad iska leexinayso qolo kale oo kaasi sareysa ay musuqmaasuq yihiin noo soo cadeeyo banaanka noo soo dhig shacabka hadaan nahay waan iska qabanaynaa marna anagu dooni mayno musuqmaasuq iyo wax dalkayga ay shisheeyo u adeegayo dalay dooni mayno waa jilicnay shacabkaygu waa hoogan waa been dawladdan marka nuur nooga horeeyaba oo xabsi ka soo diinaysa wiil Soomaaliyeed oo tahriib ka soo maxay ka badbaadinaysa oo shaqo abuur u sameynaysa oo bad u soo bari u soo celisay maaragtay hawadoodii oo qarannimadoodii iyo sharaftoodii iyo karaamadoodii dib u soo celisay anagu talaan ka aragnay siday u burburtay dawladdii dhexe ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre Allah jannadii Firdawsi hageeyay walla kaasina wax waahayay marka shacabka Soomaaliyeed hadaan nahay yaanan ku wareerin oo isaga kaaya dhex qasmin waxa wax noo ah iyo waxaan wax noo ahayn Jawaari iyo dalayba waa joogeen
horayba u soo joogaan hadday shacabka Soomaaliyeed wax u qabanayeen hadday wiil Soomaaliyeed xabsi ka soo daynayeen hadday wiil Soomaaliyeed shaqo u abuurayaan hadday hooyo Soomaaliyeed maxay barakacyaal wax ka badbaadin oo barakacyaal buul u dhisayaan hadday hooyo Soomaaliyeed iyo cunug Soomaaliyeed ay maartay maxay xiriyaha qaxootiga ka badbaadinayaan way soo joogeen waana soo noolaayeen horay buuna u soo shaqeeyay kuma aanan baran waxaan diyaar u nahay xildhibaanada sharafta leh inta Soomaalinimada jecel inta qarannimadu ka go'an tahay maanta waa maalin xumaad weeye wax badan qaar badan oo demooshinka iska qaadan jiray way jiraan haddana waxay ahayd hadba sida xaaladda u taalay ula yaaleen sababta qofku markuu siraad alla meeshan waxba kama qaban kartid shilinkaagu uu ku dhaafin qaar ba isdhahay qaarna waligood way ka soo manaayeen xaaraan maqdaca ayay waxay go'aan ku gaareen dalkooda iyo dadkooda inay macnaa u difaacaan ilaa iyo maalinka ay ka dhimanayaan xildhibaanadu marka qaarba sibay maarta heer bay soo joogan xildhibaanadii waligood mintidka ahaa dad yar bay ahaayeen maalin ka dambeysay laakiin way soo badanayeen maxay u soo badanayeen rajaday arkeen rajada wadanka iyo meesha u socday arkeen sababtoo ah marka waxa ka go'onaatay qaar badan oo iyaga kamid ah inay diyaar u garoobaan oo gacantooda ay maarta maanta waa maalin xumaad ay dalkooda qarinimadooda dib u soo istaajeen iyo midnimadoodii in lagu soo xadgudbayay arkeen aad iyo aadna waxaan ugu mahad celinaynaa xildhibaanada sharafta leh sida sharafta leh iyo sida dhiigna iyo maarta kalsoonida ay ku jirto oo sida Soomaalinimada ku jirto oo ay kamarigii dhiig miiratada ah oo tuugta ah oo DP Wall ay degdeg waliba go'aanka uga gaareen DP Wall dhiig miiratu ahaa sababtoo ah shacabkii Soomaaliland oo dhan waxa laga siiyay 10% 19% waxa Ethiopia ku qaadatay lama yaqaan 51% sida marka sida markii dib loo raacaa la yiri macnaha dawladii dhexe oo jirtay Maxamed Barre kontraadaha ama maalgelinta mar walba si awoodda dalku dadka si Soomaaliya awoodeeda aysan uga bixin si hantideedu gacanta uga bixin mar walba waxay sameyn jireen baa la yiri 51 iyo wixii ka badan ayay dawladdu qaadan jirtay si ay macnaha mar walba powerka iyo maarta majority iyadu u lahaato marka xoolaha dad majority-ga iyagu dad kala siisay taladeedina minority baad ka noqonaysaa waa xaqiiq haddaad macnaha munaafacaadkeeda ay minority ka noqotid taladeedana minority baad ka noqonaysaa oo macnaha tala kuma yeelanaysid waxtar ah sidaa darteed maxay ahayto annaga khayr iyo farmaajo ilaahay maarta ha noo xifdiyo iyo xukuumadda dhamaanteed iyo waliba maarta xildhibaanada isxilqaamay oo maanta u guntaday dalkooda iyo dadkooda inay wax ka badbaadiyaan kadib markay arkeen hoggaan daacad ah hoggaankay kama soo harto hoggaanku markuu daacad yahay ummad badan oo daacadna way soo baxayaan shacab daacadaha soo baxaya xildhibaano daacadaha soo baxaya ummad badan oo macnaha diyaar u ah inay Soomaaliya dib u soo noqotaa soo baxaysa waxaana ku boorinaynaa inay dhammaantood ku wax macnaha ta mucaaradka oo danleyda oo macnaha xiniya taabadka markaan ku shaqeynaya oo aan ka fiirsanaynin macnaha mustaqbalka Soomaaliya u danaynaynin waxaan ka codsanaynaa inay waantoobaan inay qarannimada Soomaaliya badbaadiyaan in ay hoggi ay ku dhacday ka soo ku celinin in aysan shisheeye gacanta Soomaaliya maanta u galinin inaysan maartay almaha iyo kuwa awowga u yihiin ay wax u reebaan marka kuwaasna saasan ka codsanaynaa inaysan isku taxallujin shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay u istaagnaada oo u diyaar garooba oo maaragtay dawladdiina garab istaaga oo ciidankiina garab istaaga oo ciidan shisheeye nooma shaqayn karo oo ciidan shisheeye dal nooma dhisi karo war aan shilinka hurno oo kan gudaha jooga iyo kan dibadda joogaaba aan midaan kii dollar bixin kara iyo kii nus dollar bixin kara iyo kii 10 bixin kara iyo kii 20 bixin kara aan isxilqaano oo aan cagaheena anagu ku istaagno oo wiilka xabadda sida oo al-shabaabka iyo maarta cadawga la dagaalamaya oo dalkiisa difaacaya aan u istaagnaano oo aan garabkiisa ahaano oo ka dhaawacaan daaweysano oo kan mushaar kala mushaarka siisano war jooga oo kii qoriga aan u gadano war jooga war Soomaaliya sidaan ku soo dhaama war danley iyo qabyaalada u kala jabtaan faa'iido ma keenaysan horay baan loogu soo daalay 30 sano bay cagaha ku haysaa intayna daashatay hawshaasi cid kas faa'iido ka keentana waa la waayay cid ku liibaanto ku nabad gashana waa la waayay cid tahriib kaga badbaada waa weyne cid qaxooti kaga badbaada waa weyne Soomaali isku kabay gashan yihiin kulligood marka siyaasi danley ah oo aan cidna ka naxaynin qolo walbana ku jira yu hoggaanka noo qabanin hoggaanka yu noo qabanin kuwa aan ka daba harno dawladeena meesha maxay nabad iyo nolol oo iftiinka noo soo baxay ah
oo qorraxda shamsiga noo soo baxay ah oo insha Allah ta'ala intaan maartaan noolna haday wixii nool ay ka faa'iido doonaan ilmahana uga tagayso mustaqbal fiican uga tagayso kuwa soo socda jiilka soo socda iyo kuwa hadda dhashayba taa hal la garab istaago ilmaha waxa loo reebo marka waxaan leenahay maxay ahayto Soomaaliya inay guul gaartaan rajeynayna waxaan mar kale kula talinayaa gudoomiyaha inuu waayeel weeye nin odaya weeye dawlad dhexe iyo midaan iyo wixii in kulli ka soo shaqeeyay weeye dalkan yuusan eersanin asaga yaan la eersanin jawaariyow adeerow oo awoow yaana ku eersanin iskaga tag hadii meesha la codkaaga laga qaato iskaga tag waliba xataa waxa fiican inaad isaga tagto xataa hayadan cod loo qaadin maxay yeelay mar hadii ay munaafiqa halka iyo dagaal soo galo dadkii ma wada shaqayn kartaan qalbi furana kuma wada shaqayn kartaan is too hard weeyaan waad kala mar walba maarta dad macnaha isu fiirsanayaad noqonaysaan dad isu fiirsanayana macnaha ma adeed dal ma hogaamin karaan sidaa daraadeed waxaan kula talinayaa inuusan dalayna dabada ka galin oo adeegsan inuusan shisheeye adeegsan asagoo oran jiray maarta danaheena aan gudaha ku xalino maalin wada xiyir maartay maxay ilaa xalana u dhacay baa la sheegay waa laga fiican yahay taas macnaha inaad kursigaas adoo shayb aad ku dhaganaato Soomaaliya u qaribto waa waxay 3 sano u baaba'sanayd waana laga fiican yahay taas tanaasulka fiican imagine xishood oo ogow xisuuso sidii maartay saacad u tanaasulay sidii maartay yurku u tanaasulay ogow xasuuso wax kaar ay ka dheer tahay malaha laakiin qofku markuu dalkiisa ka naxayo oo wadanimo ku jirto ayuu u tanaasulaa oo yiraahdo adiga yaa ku eersan marka adiga yaa ku eersane jawaariyow adiga yaa ku eersan gudoomi jawaariyow adiga yaa ku eersan professornimadaadii iyo aqoontaadii iyo cimrigaagii hal bacaad lagu lisay ha uga tagin ya meel xun ha uga tagin baan ku oran la waa iga waana kugu waaninaya runtii marka aan ka hadlayo taa marka waxa weeye maxay ahto gudoomiyaha iyo intaan hadda kala kulanay iyo maxaan ku naqaanay iyo maaragtay hadalkiisii sir jaraa'idkiisii koowaad oo qabtay iyo kii galabta marka iyaga u ahayd uu qabtay maxana sida u kala duwanaa iyo maaragtay waa riyoonayaan ku yar way iscasilayo haddii iscasila maxaa dadkuna way iscasila halkaan ka wada bixeen muxuu u diidayaa waqtiba kuma harin ma qaatuma qayr iska qaata inta qaata wax ma qaadan lahayd oo adoo dagaal iyo siyaasad iyo challenge iyo Soomaali lagu haya aad ku dhiman lahayd si xun ama ku bixi lahayd sharaf inaad ku baxdaa ku fiicana sharaf baad ku bixi lahayd hadaad si cajiso sharaf iyo maamuus bay ku ahaan lahayd marka maxay tahay mid baa soo qaraya jawaari khayr hays asilo maxuu soo casilaya khayr waa iftiin Soomaaliya u soo baxay waa xoog fresh ah oo hadda Soomaaliya u soo baxay si fiican u shaqeynay meel fiican Soomaaliya hadda ku wada hadduu khayr wax xun sameeyo annaga iska qabanayna laftigeena arkayna annaga arkayna waa arkayna indhahan jawaari ku aragnay iyo sidaan u darisnay baan u darsanayna fursadii horta nasiiya aan ku darsi lahayn jawaari waa darisnay muddo soo shaqeeyo waana arkayna indhahana ku hayni laakiin xasan cali khayre madaale hadduu noo qabtay maxay tahay majaraha meel fiican buu noogu hayaa si fiican buu noogu shaqeynaya wax la taaban karuuna sanadku jooga noo qabtay marka annagu waxaan ku nacno kumaana arag iyo waxaan ku dhibsano ma haddaan ku aragnana annagaan daynayn oo noo kaasay idinku isu kaaya baneeya maxay dhexda hana kala dhex istaaginina annakii dawladda nabad iyo nolol hana kala dhex galinina nooga shacabka iyo dawladda yaa la kala dhex galin indhahan kuwan ku aragna annaga iyagana waa ku arkaynaa ilaa hadda annagu wanaag baa nooga muuqda wax qabad baa nooga muuqda dadaal dheeraada iyo maaragtay dardar dheeraada iyo waal aad iyo aad dad isu kalifay oo aad u dheer u dadaalayaan aan ku aragnaa maxaan marka ku dhaliilaa qofku dhaliisha hala yimaado dhaliisha iskama soo dhacdo cirkeen dhaliilya amaanba qofkaaga waa wuxuu kala yimaado anagu Soomaali ma kala jecelin maamulaya qofka soo Soomaali hogaan noo qabta daan shacabka nahay wixii wax noo tarayna waa aragnaa wixina dhibahayna waa aragnaa intaas way muhiimadu marka hadda waxaad amaan aad lahayna khasab ku qaadan mayso toban guulo dawlad baan ka soo shaqeeyay dad ka soo shaqeysay shaqaalaad ahayd oo mooshinkaaga hawlahaaga kala wadatay gudoomiye Jawaari laakiin shacabka Soomaaliyeed nin u dhimanaya iyo qarannimada Soomaaliyeed kamaana baran nama aad tusin sida daraadeed khayre iyo annaga yaana kala dhex galinina shacabka iyo khayre yaana kala dhex galin khayre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha sharafta leh markii annagu aan aragno inay dib nagu wadaan annaga iska qabanayna noo kaadiya naxdin iyo nabar dalayda ah iyo inta aaminsan iyo inta daba socota iyo inta aqligoodu gaaban yahay iyo inta sandareerada la siiyo oo laaluushka ku nool oo inta daba socota u shaqeysa yaa naxdin iyo nabar ah
nolol iyo neecawna dowladdeena ah sharafta leh oo wiilashayadii maxay tahay afarta koono iyo wadamada gaala ku xirnaa nooga soo daayay maxay tahay wiilasha intaasoo baagamuunda ah noogu shaqaa noogu abuuray sharaf iyo maamuus kuwaasaa annaga naga mudan kuwaasaa xusid naga mudan kuwaasaa garab istaag naga mudan ciidamadeena garab istaag naga mudan yaan laydin marahabaabin shacabka Soomaaliyeed yaan laydin marahabaabin khayrkiisaan ilaa hadda aragnaa annagu shartiisa ma ana arag wali ilaahayna naga hayo khayrkiisaan aragnay Allah noo saa'idiyo dadaalkiisaan aragnay Allah noo saa'idiyo asagana cadawga Allah ka qabto wax alla iyo qofkii cadow ku ah iyo kuwa cadawga dabadeen nabad iyo nolol cadawga ku ah iyo kuwa maangaabka ah iyo kuwa maartay xinka doqonnimada ah uu ku jiro ilaahay aqligan ha idinku soo celiyo waxan aqli alla la maagina ilaahay masiibo degdeg ah ha u keeno naga qabto asaga awood leh taa waxaan ka leeyahay marka waa xagga Jawaari iyo xildhibaanada sharafta leh ee Soomaaliya u taagan oo maartay midnimadeeda iyo sharafteeda dhowraayana idinkana Allah idin dhowro waad naga turjunteen kuwa wanaagsan oo Allah idin dhowro Allah idin sharfo taariikhdan idin sheegaysa xaliimada maxay soo hadlayso waa arkayna wasiiradda ma sha Allah tabaarak marka yaan la isku saqajaamin dawladda nabad iyo nolol baan shacabka u taagan tahay shacabka iska leh shacabka doortay danleyna ka yeeli mayno culimada ku saartay Sheikh Baaruud hadlayo dhahayo ya hala joojiyo mooshinka waa maqlayay mooshinka waa sax kii horeba hala joojiyo yiri wuu ku fiican yahay laakiin ha hubiyo sida wax u socdaan iyo meesha wax ka socdaan inaan maqalo culimadayda ka dambayno waan rabnaa hadaan shacabka nahay laakiin waxaan rabnaa inuu wax xubsado sheekhu waxa xubsado culimada waxa xubsato wixii haday tahay lagama maarmaan hadaysan ahayna hadda banaanka hala soo dhigo midda kale jaaifada iyo macnaha waxyaabaha uu shacabka ku maran habaabinayo Jawaari uu leeyahay maxay waxba saxiix la yiri da banaanka noo soo waxba ha noo qarini anagu khayr dhibaatadiisa iyo lugooyadiisa iyo khiyaanadiisa ma annaan arag iyo meel lagu khiyaanahaye soo banaanka soo dhig haduu wax kugu khasbay oo aad ka diiday wuxuu kugu khasbay banaanka soo dhig xalaal maalin baa la quutaa xalaal dharaar baa la quutaa ha ku gabanin oo annaga hana marin habaabinin oo annaga ha nooga dhin dhuwaana gadanaya dhuwaadina gadanaysay waa naqaan markii dhuwaana gadanay dhulkan daadsanay ma fahamteen dhulkaasaan daadsanayn qaxooti baan meel walba iyo xabsiyadan ku jirnay laakiin maanta dhuwaa baa noo cunayeen ma dhihi karno nuguma aha khayr dhuwaa farmaajo dhuwaa nuguma ahan waa ilaahay awayn uu noo soo diray Soomaaliya u soo diray weeye ayma ilaahay shacabka Soomaaliyeed u soo diray weeye shacabkuna waa inay inta gartaan waana inay ka faa'iideystaan waqtigooda iyo fursadda ilaahay siiyay lama garanayo haday maanta fursadda ka beerdaroodo say dibdamba ugu soo marayso wallahi inay cariiri bay tahay wallahi waa cariiri ma jirto ma oran karno qaybka ma ogin laakiin waa fursad aad cariiri u ah sida daraadeed shacabka waxaan ku boorinayaa inay garab istaagaan dawladooda nabad iyo nolol inay garab istaagaan ciidamadooda qalabka sida nin dhulkiisa ku xoreyn maayo nin kale dhulkaaga inuu ku xoreeyo ha suginina Soomaaliya ciidamadiina canshuurta bixiya oo kuwa dibadda jiro isxil qaama oo ciidamadiina maxay mushaarkooda bixiya oo dhaawacooda daawadooda bixiya war jooga war sidaan isku dhaano war nin qurbahana karaamo kuma haysana waa wada ognahay ilmihi waa kuwa duurka naga wada galo intooda badan waa ogtihiin ilaahay inta joogtana ha noo caymiyo in badanna jeelasha iyo godadkay ku wada jiraan waxaasina waa dawlad la'aan waa meel loo celiyaan jirin waa hopeless bay ahayd laakiin maanta rajaa noo soo baxday maanta rajada noo soo baxday aan ka faa'iideysano rajada noo soo baxday dayac noo soo baxay aan ka faa'iideysano kuwa qabyaalada u raran oo khalad iyo saxba ku taageeraya qabyaalada dadka qaldan ama danleyda ama marin habaabiska horta aqliga Allah ku soo cesho aqliga Ilaahay ha idin ku soo cesho asaga ku soo celin kar lagu ma siin karno waxaan usantiin Allah idin caafiyo wax kale idin ma dhahayne maanta wax kale habaar kuma bedelayne Allah idin caafiyo taasna saasan ka leeyahay kuwa xanuunsan oo laga badiyay xanuunka ka batay oo maartay cudurka lagu shubay oo caruuraha yar cudurka lagu shubay Allah noo caafiyo wax kale oran mayna isbitaalana waa in loo dhisaa dawladda waxaan ka codsanaynaa isbitaal counseling in dadkan therapy loogu sameeyo waa in la furaa sababtoo dad badan baa 30 sano cudur sidii loogu shubahayay xanuunsan oo hadii khayr kasta la keena shar u arka sida darteed maskaxdii waa si khalad u shaqeynaysa dadkaas ma ogtahay marka maskaxdii therapy bay u baahan tahay waa in therapy dadka loo sameeyaa oo maartay maxay dhaqaatiir iyo counseling iyo isbitaal wallahi loo sameeyo u baahan yihiin 30 sano dhalinyarada halka ku soo gaartay in badan oo kamid ah sida daraadeed
waxaan marka lagu soo celinayaa hala garab istaago dawladda ciidamada hala garab istaago la iskuma jiro juumbaynu nahay annagu maanta khayre iyo jawaari nooma sina annagu maxay ahayd xukuumaddayada iyo nooma sina iyo jawaari maantay jawaari waa keligiis maxay ahayd horena wuu nooga soo shaqeeyey wuxuu noo soo qabtay iyo maanta inaan labadan markaan kee ka maaranaa jawaari baan ka maarmi karnaa markaan runta sheegno haddii la khayre iyo jawaari baan ka maaranaa khayre kama maarana maanta sidaa daraaddeed xataa haddii maanta tii alla xataa u timaado wallaahi inaana filaynin maxay ahayd ra'iisul wasaare ku karti ah oo maaragtay ku dadaal ah inuu xataa la helayo Soomaali xilligan laga helay wallahi xataa inaan aaminsanayn abuurista waana waxa Ilaahay abuuray aqoonta la bartay qof walba boqol shahaado waa wataa qaar badan laakiin kartida waa u dhalasho Ilaahay baa u dhaliyay qofku markuu kartina leeyahay daacadna ka yahay shaqada uu qabanayo oo gool leeyahay waa ma sha Allah una yar yahay oo dhalinyaro u yahay oo energy u hayo marka fursadaas yaa Ilaahay maartana siiyay aan ka faa'iideysano Soomaaliyay jawaari waa oday Soomaaliyeed waa odaygayagii waa aabe Soomaaliyeed waa awoowa Soomaaliyeed ma diidanin laakiin markay maanta noqoto Soomaaliya meesha ay taagan tahay iyo qaska iyo labka iyo intaasoo maartay arrimood oo maartay uu maxay too xukuumaddu ay hindisho sharci ay baas galayso wali ku jira luuqa oo wali aanarka miiska ugu jira uu hore socodsiin laayahay markaan fiirino maxay ahayto xerilaalihii guud nimanku xasaanada ka qaaday oo wali miiska hoostiisa ugu jira xataa uusan ka hadlin barta wax dhinta ka soo qaaday waxaan la oranba ka soo qaaday dadku inaysan waxba maqlayn buu u qabaa dadku inaysan fahmayn buu u qabaa haddii la aaminsan inaan la fahmin ma u malaysaa waa fahamsannahay daaminis daacad kama tihid dawladda nabad iyo nolol iyo shacabka Soomaaliya inay lugahooda isku istaagaan daacad kama tihid waxaad dabaysha dhinacaad adigu rabtaa inay u socoto oo danlayda iyo imaaraadka la shaqaynaysaa jawaari adeero waa ku fahamnay waana mahadsan tahay waa ku duceynaynaa waa ku sharaysanay iska kaayadaa bini'aadamku hadday ku sharaystaan waa la daayaa waa ku sharaysanay shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay maadaama aan ku sharaysanay noo daa oo maraha oday Soomaaliyeed baa tahay halkaa fariiso tani tawfiiq wixii kaloo lagaaga baahda hal la gaaro marka sidaa darteed waxaan ku soo gabagabeynayaa Soomaaliyay ninka halkaan joogay midka halkaa joogo kulligeen waxaan u baahannahay dawlad waxaan u baahannahay waxaan dawladdan maanta garab istaagan karnaa oo aan maanta aan alla ilaahay dawlad baad hesheen aan oran karnaa maanta yaa maanta jirta war maanta yaa naga fakarnin war maanta yaa aan daba qabsanno war maanta ciidamadeena aan dhisano war maanta aan guntanno war iskeen wuxuu qabsaan u istaagno war dawladdeena aan marcagayna ku istaagno marka anigu intaasaan kaga sii tagayaa ballan baan meel halkaana ku lahaa oo ballantiina maarta xoogaa waa intaan sugay waa ka yarada haban malaynaya marka waxaan idin leeyahay nabad iyo caafimaad iyo khayr baan idinkaga tagahayaa Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya ha israacdo cadowgeeda Allah naga qabto danleydana dantooda iyo dalka dantooda iyay wataan Ilaahay dalka danta iyo shacabka ha fahamsiiyo Ilaahay aqliga saliimka ha ku soo celiyo Ilaahay caloosha u shaqaystinimada ha ka nabadgeliyo Ilaahay ha ka soo ka waantooba Allah ka dhigo saasaan idinkaga tagayaa dhammaantiin waa walaashin Hinda Cabdi oo idinkaga tagaysa maalin wanaagsan intii habeen joogta habeen wanaagsan Ilaahay khaatumada ha noo sameeyo Ilaahay inta naga xanuunsan ha noo xaafiyo Ilaahay inta naga maxay too naga marin habaabsan ha noo soo toosiyo Ilaahay inta toosan ha noogu saa'idiyo Ilaahay dawladdeena iyo maxay too ciidamadeena ha noo garab galo Ilaahay ha na quweeyo Soomaaliya Allah ha quweeyo Soomaaliya Ilaahay dawlad khayr qabto iyo qaran buuxa oo cadawga iyo maartay shisheeyaba ka kaaftooma Ilaahay ha naga dhigo dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaan iyo cudud ahaan kuwa isku filaada Allah naga dhigo kuwa midooba oo isku duubnaada Allah naga dhigo waqooyi iyo koonfur iyo kuwa kale oo naga maqanba kuwa isku duubnaada iyo kuwa midooba Allah naga dhigo khayrka kuwa ku midooba Allah naga dhigo shaydaanka iyo shartan ugu dhex jirta Allah naga qabto cadawgana kala gadayo oo aan danlaydu maarta horkacaysa Allah naga qabto cadawgana kala gadayo danlaydu horkacaysa Allah naga qabto cadawgana kala gadayo danlaydu horkacaysa Allah naga qabto intaasaan arki laanahay Ilaahay ha naga qabto Allahna na tuso dhanna isku meel Allah naga tuso meeshan ka aragnay intaan ka arkayna Allah ka tuso asaga awood leh saasaan idin leenahay nabad iyo nolol
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين هندا أو سيال واشتن كلا هالليسة من نما قرن ودن جروبك والسلامية من نما تشي بن سلامية عبد السلام بودري إبراهيم وبدلنا هاي صح محمد صومالي عبد الوهاب شيل وما شاء الله لما يكون كان سهر قرن لما أنت كندا يا يوروب أنت مال ولا يشوفان بس لما أنت سماح كشقيسة أنت سماح أتاجن أنت صومالي لماذا أتاجن أنت مارد من لماذا أتاجن مال يشوفان بوايد سلام الله نيدن كراميه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقت جاي عريري يقرأ على هذا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.